daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan halkani waa qabriga Sheekh Isxaaq oo ku yaala degmada Maydh ee gobolka Sanaag sheekha taariikhdiisa ayaan rabaa inaan halkan idinku soo gudbiyo waxa halkan ku aasan sidoo kale Sheekh Isxaaq iyo qaar kamid ah awlaad u dhalay qofka haya furaha sheekha qabrigiisa bal taariikhda sheekha qabriga inta qofka kula aasan bal looga waran halkan Sheekh Isxaaq waxa weeye meesha Maydh la baxday Sheekh Isxaaq waa ku aasan halkan Maydh la baxday waa magaalo ahaan jirta waa tan tuurtii ceelka isaga qoday sheekhu markii ugu horeysay ceelkaas ka soo bilaabay dabeetana biya ka soo booday xareeda ceel halka ku yaala ceel daahir baa la yiraahdaa waayahay Soomaad garan qudbiga isaga gacantiisa ku dhashay sheekha ku aasan sheekhu ma intaanu dhiman ka hor buu qudbiga sii dhistay isagoo xaya ayuu dhistay laba nin oo shariif ah la dhisay laba nin oo shariif ayaa la dhisay 700 sano ayuu dhisnaa waxaanu waxa weeye markaa yani awlaadiisi waa ku aasan imisa la aasan sheekh waxa weeye laba shariifa oo qudbiga la dhisay Muuse awal أيوب سمبور إسماعيل عري أنت صلاة أنت كواسة أنت كلو حي كواسة دالو يا رب كواسين كل شوف كارين يا مركا وحوي لبدي إسلامات مقعد يحبوش بالكم كوشت مقعد يحبوش يكون كوشت شيخ مقعد واحد كواسة طيبور كرامه هوستير وطا هل كتاجد حبالينه كم غير حبوشنا دلنا بكواسنت ماشي دلنا لا يوم بكواسنت واي Soomaad garan marka waxa weeye anagu marka halkan waxaan xabaalaha u ducaynaa xabaalaha ayaan u ducaynaa waanu ilaalinaa waa taariikhdii Isxaaq ayaan ilaalinaynaa waan u ducaynaa imsa sanad ilaalinaysi ila 30 sano ayaad ilaalinaysi furaha haya furaha waxa haya ina Saciid Cabdiraxmaan Saciid Maydh adiguna wad caawisamiya عاويانا marka bal duruufta iyo xaaladda iyo leerka sida loogu daariyo nooga waran leerka waxa loogu daaraa waa kala nooc mar waxa weeye waa machine mar waxa weeye solar mar ban nooc baa loo keenay dadka reexay baa u keenay yaa u keenay umada reexay aqoon baa keenay waa machine leer baa muddo dheer ka bixi jiray leerkaas muxuu ahaa waa marka rabbaaniya hore miska rabbaaniya bas leerkaas wuxuu iska rabbaani meel Allah ya bixi jiray uu si sheegay sheekhu wuxuu nilka iga baqsiin doonaa awlaadeeda ku jira